bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh saaxiibyaal kusoo dhawaada janalka job skills iyo weliba website-ka job skills. waxaan rabnaa maanta inaan idinla wadaago mar kale xirfad ka mid a xirfadaha ugu muhiimsan ee looga shaqaysto online-ka. xirfadaha online-ka looga shaqaysto waxaa ka mid ah xirfadda loo yaqaano designinka ama xirfadda nashqadeynta oo ah xirfadda ugu muhiimsan oo qarnigan 21aad looga baahan yahay qof walba oo dhalinyaro inuu leeyahay. haddaba xirfadaasi siyaabaha loo barto waxaa ka mid ah in aad taqaano ama aad ka barato iskuul ama online-ka aad ka barato ama aad hesho website aad ka barato waxyaabahaas. koorsooyinkaas oo diyaarsan insha allah waa idiin soo wadnaa. hayeshee waxaan rabaa inaan idinla wadaago website si fudud kuugu sameynaya ama adigu aad ka samaysan karto design walba oo qurux badan haddii ay ahaan lahaayeen boorar ama posters ama stiikaro ama waxa la yiraahdo ID kaaro ama business card, wax walba oo daabacaad ku saabsan ayaa website-kana si fudud ugu diyaarsan kartaa adiga oo aan wax qarasha bixinin. xirfadda barashadeedana aad ayay u sahlan tahay. xirfaddan inaad barato waa xirfad aad u fudud. haddaba waxaan isla tegaynaa website-ka. waxaan tegaynaa marka ugu horeyso Google Chrome-ka. marka aan tagno kadib ayaa qaybta searching-ka waxaa ku qoraynaa waxa loo yaqaano Canva ayaa loo yaqaana website-ka. Canva markaan ku qorno waa kaas oo inoo soo baxay. Canva ayaa ku dhufanaynaa. website-kaas Canva la yiraahdo website-ka ugu weyn ee maanta design-ka lagu sameeyo, si fududna aad uga heli karto design walba oo qurux badan oo aad rabto inaad samaysato. waxaan ku dhufanaynaa website-ka ugu koreeya ee ku qoran tahay canva.com. marka aan ku dhufano marka hore aan ku dhufano waxaa inoo soo baxaya qaybtan ugu horeyso. waxa uuna leeyahay marka waxaa qasaba si aan gudaha u galno in aan ku galno gmail-keena. marka gmail-ka waxa uu noqoyay furaha wax walba oo internetka aad uga baahato. wax walba oo internetka uga baahato haddii ahaanayd waxbarasho ama inaad wax ka iibsato, waxaa u baahan tahay oo qasaba inaad leedahay gmail. marka gmail-kaas ayaa ku galaynaa continue at dhalinta maanta ayaa gmail-kaas u bixiyey. gmail-kaas ayaa ku dhufanaynaa continue as ayaa leenahay. marka gmail-kii ayuu noo dirayaa. marka gmail-kii ayaa ku dhufanaynaa kadib wuu aqbalay. hadda waxaan gudaha ugu jirnaa markaan waxa loo yaqaano website-kii Canva. website-kaas Canva aan gudaha ugu jirno waxaan ka heli karnaa qayb walba oo ku saabsan designinka. inkastoo uu leeyahay qayb pro ah ama horumarsan oo ku saabsan inaad lacag bixiso oo designada hadda aan kuu sheega kuwa ka qurux badan aad ka heli kartaa. bishii ayaa waxyar iska bixinaysa oo lacag ah. marka halkan wuxuu na weydiin doonaa ama na weydiinayaa adiga kumaa tahay, qaabkee u isticmaali doontaa, arday miyaa tahay, macalin maa tahay, small business maa tahay, non profit organization miyaa tahay oo aan faa'iido doon ahayn, shaqsi miyaa tahay, company weyn miyaa tahay, noocee tahay. arday iska leenaha marka aan ka bixinaa. kadib waxaa leenahay arday jaamacadeed ardaygee rabtaa. marka waxaa leenahay arday professional ah ama waxaa iska leenahay arday dugsi sare iska leh. continue leenahay. kadib next qaybta waa ka boodi karnaa haddaa u baahano. waxaa iska leenahay waayahay. waa marka uu inoo diiwaangeliyey oo wuxuu noo ogolaaday in aan hadda kadib gudaha usoo gali karno website-ka Canva anagoo isticmaalayna gmail-keena. markan waxaan awoodnaa in aan sameyno design walba. halkan kasoo bilaabeynaa. halkan waxaa ku jiro logo maker, flyer maker, banner maker, poster maker, resume maker, xitaa CV waa ku samaysan kartaa haddii aad u baahato. invitationaa ku jiraan, waxaa ku jiraan business cards ku jiraan, video intro maker, xitaa introductionada ama intro wax loo yaqaano oo marka TV-yada ama qolooyinka YouTuberada ay soo bandhigayaan muuqaalo qaybta ugu horeyso introduction-ka ah waxaa loo yaqaanaa intro. xitaa waa ka heli kartaa. memo maker wuu sameyn karaa. college maker, graphic maker, dhammaan waxyaabahaas o dhan ayuu leeyahay. history hadday noqoneed, posters, flyer, logos, minis, wax walba oo ku saabsan internetka ama la nashqadeeyo ayaa halkan ka heli kartaa. sidoo kaleeto as businessna waxa uu isticmaali kartaa. wax walba oo business ku saabsan ayaa iyaduna ka heli kartaa oo ku saabsan design. waa design oo kaliya. educationka marka la yiraahdo iskuulada iyo macalimiinta iyo jaamacadaha iyo qolo walba oo ku saabsan ayaa isticmaali karto. sidoo kaleeto qayb lacag ahna wuu leeyahay oo pro. marka isagaa laba qayb kale ah. qayb waa free, qaybna waa pro. qaybta broda
waa lacag. qaybta freega ayaa inagu inta badan isticmaali doonaa. waaya intaas waxaan ka fahnay interfaceka ama qaybta hore ee waxa loo yaqaano websiteka Canva oo ah website design ah. haddii aan gudaha usii galno marka aan rabno inaan design aan qoranno, halkan ayaa ku qoraynaa wixii markaas aan rabno. templates ayuuna siinayaa oo noo saamaxayo inaan wax ka bedelano. tusaale ahaan markaan rabno Facebook post, markaas tusaale ahaan waxaan rabnaa kasoo qaad Facebook cover. markaan rabno coverka Facebooka ku saaran qaybta dambe ee Facebookaada, qaybta masawir ku saaran maana qaybta kale waxa loo yaqaanaa cover. Facebook coverka markaa ku dhufano cabirka asagaa si sax u haysto kaliya siinayna. kadib waxaa noo soo baxayo meesha ay ku qoran tahay ama nashqado kala duwan oo aan ka bedeli karno waxa la yiraahdo Facebook coverkeena. tusaale ahaan kan oo kale marka aan ku dhufano waxaan ka bedeli karnaa inaan ka bedelano magacii iyo sawirka meesha uu saarnaa inaan ka bedelno oo aan soo saarano sawir annaga aan leenahay ama magaceena aan kusoo qorano iyo waxyaabaha lamidka ah. marka halkan wuxuu leeyahay waxaad rabtida halkan ku qoranaysaa. tusaale ahaan halkan oo kale waxaa ku qoranaynaa job skills oo kale halkaas ku qoraynaa. job skills markaan ku qorno waxay ka shaqeysaa online education ka shaqeysaa leenahay online education. marka qaabkaas u qorato halkaas ka soo qabanay, halkaas markaas ka soo qabato filaarta ee laba geesood iyo sharato sidaas u soo jiidaysaa halkaas. okay, markaad rabto halkaas inaad iska bedesho loogada oo kale markaad rabto aad soo saarto loogadaada dilaydaas ka leedahay halkaas kale magacaada ku qorane. magacaada marka aad ku qorato jobskills.com ayaa halkaas ku qoranaynaa. markaan ku qorano halkaas kanoo kaleeto waa iska tiraynaa haddii aan rabno. sidoo kale waxaan rabnaa in halkan loogadii job skills aan soo dhigno. marka waxaan tagaynaa meesha ay ku qoran tahay uploads ay ku dhufanaynaa. uploads meesha ku qoran tahay ku dhufanaynaa. sawir gudaha inoogu jiro ayaa soo saaranaynaa. kadib waxaan leenahay upload fileka soo upload gareeya leenahay. markuu fileka soo upload gareeyo desktopka inuu saaran yahay ku dhufanaynaa. loogadii waatana waa soo qaadanaynaa. open ayaa leenahay. markaan open dhahno loogadii halkaas ay noo soo gali doontaa. markay halkaas soo gasho waatana way soo gashay. kadib loogadii ku dhufanaynaa automatic halkaas imaanaysa. waa soo jiidaynaa waa yareynaynaa. kadib waa qabane halkaas geenay. markaad halkaas geyso halkaas ka qabo soo jiid si fudud kana halkaas iska keenso haddii aad rabtana halkaas geyso hadda sida uu kugula qurux badnaado. marka waxaan rabnaa kan inaan kalar ka bedelno oo calaamadeysanayna sidii caadiga ahayd kaliya ku siinaynaa meeshaas kalarka. kadib waxaan dooranaynaa gaduud oo kaleeto dooro. kadib kalarka saas aga bedelna. masawirka markaan rabno inaan ka bedelno sidii oo loogada usoo gelin oo kale u samayn karnaa. halkaasaan kale ku siinaynaa daleeda leenahay. sawirka waa iska daleednay. okay, sawirka waxaa la socdo markaan frame la socdo. marka isaga macal framekiisa haddaan rabno daleeda wada leenahay. aan ku soo celiyo marka aan rabno inaan daleed dhahno daleed markaa dhahno maxay kaa daleeda ay ku leeyahay sawirka mise frameka. sawirka naga daleeda leenahay. sawirka naga daleeda. kadib waxaan tagaynaa meesha inoogu qorneyd upload. sawiraan rabnaa inaan soo gashano. halkan wax sawir noo yaala ma lahan. okay, wax sawir noo yaala ma lahan. asagaa marka sawirka dhex raadinaynaa oo qaybtan ay ku qoran tahay elements meesha ay ku qoran tahay ku dhufanaynaa. halkan waxaa ka raadinaynaa marka sawirka markaas aan rabno. tusaale ahaan waxaan ku qoraynaa man oo kaleeto oo nin ah ayaan ku qoraynaa. markaan ku qorno halkaasaa nin nooga soo bixi doonaa. markuu nin ka soo baxo ninkaas ayaa halkan soo saari doonaa. casharku waxaa dhici karta inuu xoogaana la dheeraado balse muhiimaddu waxay tahay inaan fahanno waxa loo yaqaano Canva oo ah mid ka mid ah designada ugu quruxda badan ama loogu jecel yahay in design lagu samaysto. markaasa designkii halkaas ayaan ingaas gelinay. marka elkan oo kaleeto websitekaada magaciisa iskaga qoran kartaa. marka waxaa leenahay
halkaasoo kale websitekaada ku qoranaysaa. marka waxaa leenahay jobskills.com jobskills.com markaas ka soo dhaweynayna halkaas ka geey. marka xarjeenaa designkii ku saabsanaa waxa la yiraahdo Canva inaan isla fahanay. adiga quruxso waxaada adiga habeeso nashqadeyso. marka intaas ayaa rabaa inaan ku soo koobo. aad baa u mahadsantihiin. haddii aad channelka cusub tahay fadlan subscribe dheh oo la wadaag asxaabtaada. intaas ayaan ku soo koobayaa. assalaamu calaykum.